shabaab waxa looga guuleysan karaa markii dalka iyo dadku ay midoobaan oo nidaam lagu kalsoon yahay qof walba xisbiyadan ay ku soo ururaan oo ay imaadaan gobolkan oo noo sheegan dawladnimadan inay gadaal u noqoto marno in hor u soconaa rabnaa 91 wixii ka soo horay dawladda sidoo kale u dambeysay ninka yiri qof iyo cod war gacanteena ku ceelbaxa meel loo dhaafo male mucaaradkana waxaan leenahay guud ahaan dalkooda ayaa martigeliyay jaawareer siyaasadeed kadib markii xubnaha mucaaradka dalkii sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay isku fahmi laayeen qaabka doorasho ee dalka shirar isdaba joog ah oo aan wax natiijo ah lahayn ay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya martigelisay kuwaas oo indhaha u taagayeen shacabka Soomaaliyeed balse shacabka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa aragtidooda ka dhiibtay jaawareerkan siyaasadeed ee dalka ka taagan xilli magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay yimaadeen xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka. ilaahay baa mahad iska leh maanta waxaan fakarkayga ka dhiibanayaa doorashada loo madlan yahay inay ka dhacdo gobolka Hiiraan wax bataata bahadal oo angelina ma jiro haday tahay maamul dhisida Hirshabelle war maanta meesha aan joogno iyo meesha loo socdo bal soo fiiriyo aad baan soo dhaweeynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu hagaagto waa garab taaganahay muruq iyo ma kursi doonaya waa maqal laakiin waxbaan bedelaynaa horumar baan keenaa waligeeba kama ana maqalba qof iyo cod 91 wixii ka soo horay dawladda sidoo kale u dambeysay ninka yiri qof iyo cod war gacanteena ku ceelbaxa meel loo dhaafo male mucaaradkana waxaan leenahay shacabkeena u tura in badan kursiga waa ku fadhideen iimaanka Allah in ku soo celiyo walaalihi dalkan wuxuu ku xoroobi karaa shabaabka dadka wax ka daran baa jira oo dahabkeena iyo dheemankeena guranaya oo reer galbeed leh oo dawladda nagu soo duulay leh marka waxaan leenahay hadii la ku sameeyo goliya system dawladeed oo shaqeeya oo sax ah oo shacabku ku kalsoon yahay ma jiro maamul gacan ku rimayso Hirshabelle la yiraahdaa jira maamul cusub oo la wada leeyahay Hirshabelle in la dhisaan rabnaa dawladda federaalka qof iyo codka in loo gudbo la garab siiyaan rabnaa horumar iyo hiigsi baan rabnaa magacay waa Muuse Amsfor doorashada oo laga qabanayo Beledweyne oo nin codka anaga waxa aan rabnaa dawladnimada in noo socoto warnaa doorashada in cod inaan qabano ilaahay haduu qaraar noqdo bulshada reer Beledweyne yaa oo soo dhaweynayna in ilaahay si nabad noo qabsiyo marka kulli waxa waaye khilaafna waa jiraa ummadda inaan oo la sameeyo wacyigelin loo sameeyo oo dad wacyigeliyaal oo la soo diro oo sidaas wax lagu qabto waa aad u wanaagsan leeyahay marka insha Allah waxa weyn anaga waxaan u muhiimina dawladnimada in naga burburin marka oo dawladnimada ay noo sii socoto waxa waaye 35 sano anaga 45 sano jira 10 sano maalinka jira dawladda bishay ama marka wax soo garanay dawladda bishay marka waa kulli wax lagu faano in dawladda aan leenahay dal ahaan iyo dad ahaan marka waa soo dhaweynaa doorashada cod qofka aan rabaan doorana midkaan rabo aan doorana soo waa sida waa on doorasho oo la isla ogoliyay waxa anaga ma wada jeclaynay laakiin hadda waa waqtigan waa socaya dawladnimadan inay gadaal u noqoto marno in hor u soconaa rabnaa xuskayga soo magaaran doorashada cod soo magaaray 50 sano iyo 60 sano la sheegayaa marka doorashada cod waa qof adiga oo macnaheedu doorato aniga hebelan rabaa inuu ii soo baxo oo xukumo oo gobolka loo doorto oo dad aan rabno aan doorano oo qof la iska soo oo la iska keenay codka dareen waxay dhigtaa inuu dawladnimada ay noo socoto oo in codka aan doorashada aan ku qabsano oo qofka anaga aan rabno aan doorano shacabaan aan sidoo kale to aan rabo shooyinka ee soo gaaray shalay insha Allah waxaan rajeynaynaa in si nidaam ah ku dhamaan doono laakiin anaga waxaan u baahanyahay leeyahay dadkeena wacyigelin dadka la dooranayo inay imaadaan ee fagaarooyinka imaadaan ay sheegaan waxay noo qabanayaan oo nooga bedeshaan inaan doorano qof waxaan dooranayno waa inay ahaadaan wax soo bandhigo waxaas sameeynayna oo anaga markaas dan noo ah sida wax loo doorto si aan u arkamo adduunyada aan ka aragnay qofka la dooranayo waa inuu imaado yiraahdo anaga xisbigaas ku socdo gobolkan waxa uu qabanay laami u dhisaa diyaarada u dhisaa isbitaalaha u dhisaa iskuulaha u dhisaa waa inaan qof ballan qaadiyo fagaar ka hadal loo sameeyo qof walba xisbiyadan ay ku soo ururaan oo ay imaadaan gobolkan oo noo sheegan qaabka loo dooranayo iyo waxa noo qabanayaan doorashada anaga waxaan leeyahay dadka magaaladan jooga ugu sheegaya in ku bedeshaan codkooda in wax loo qabto
Liibaan Suubane Daawud, Idaacadda TV-ga Shabeelle, Beledweyne.